السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة عالم كشقيا ورياشة ayaan isdheeyay alaabtoodii waaye ha iska dubtaan hadaan geystaan hase yeeshee fuustaa noola riixay waa la soo garaangariyay si ay agteena marka ugu qarxin inaa ka hadalna waay wararkii ugu dambeeyay ee Iran iyo caalamka wixii ka socday ayaa markaana qaada dhigana mid kale AFP ma naga fakanayso Reuters ma fakanayso CNN ma fakanayo Fox ma fakanayo Press ma fakanayo World Live 3 ma fakanayo all in all macni telegramyada xitaa ma fakanayo ay muuqaal ay soo dhaca waa u taagana waxaan soo gelin doonaa telegramkeena kor u dhaafay 800,000 si dadku ay ugu yaraan u helaan macluumaad sax annagana aan uga badbaadno fuustadan ilaa iyo shalay nadaba socotay aan ku horeyna marka ugu horeysa waxa Iran ay sheeganaysaa guulo waaweyn inay ka gaartay gardaradii duulaankii bareerka ahaa ee Israa'iil ay ku soo qaaday waxa muuqaalo ay baahiyeen lagu arkayaa dad Israa'iiliyiin ah oo xitaa nafla caari darteed godadkii iska wadaayay gaadiid jidka taagan ka hoos galaya yani waxyaabaha soo dhacaya ee hawada caawa runtii gaduudka ka dhigay sidoo kale warbaahintii ugu afka dheereed ee caalamka ayaa tabinaysa in ciidanka xooga ee Iran inay ku sii hanjabayaan in bahashu ay hadda ay bilow tahay oo aan wali la isgaarin isla markaana jawaabaha ay ka bixin doonaan weerarkii laba maalin ka hor lagu qaaday uu noqon doono waliba mid aan sidan sahalka ah ku dhamaanin oo uu taxano u noqonayo ilaa ma sida iyagu taageersan yihiin ama ay ayidayaan bahashan meel sax looga soo haro Israa'iil oo markii hore sahalsanaysay Iran ayaa weerar ku qaaday si kasta oo waliba hadda Iran ay difaac culus u sameynayso oo Tel Aviv iyo meelo badan oo kamid ah sida Haifa iyo meelo kaleba ay duqeymo culus ku wado oo dad shacab ay ku dhinteen haddana Israa'iil dhinaceedu ma joojin duqeynta ay Iran ka dhex geysanayso warshado waaweyn ayay warbaahintu tabinayaan in la bartilmaameedsaday holac ayaa meelaha qaarna isqabsaday laakiin jugta iyo xooga yani dhawaaqa ay bixinayaan hubka ay adeegsanayaan Iran ayaa run ahaantii adduunka ka yaabiyay waxa loo haystay markiiba wax aad iskaga sahlan ama ay dad tabar yari ay wado oo aanan intaan meelna natiijo gaarsiin kara sayeshe dhawaaqoodii wuxuu gaaray in madaxweynaha Donald Trump xitaa uu yiraahdo nabad degdeg ayaa loo baahan yahay Shiinaha ayaa sidoo kale arintan soo farageliyay oo ka hadlay oo ku dhawaaqay isaguba in ay xadkii la filayay xad ka duwan ay u dhaqaaqday Israa'iil oo ay xadgudub weyn sameysay oo aan looga aamusi karin arintaas saxna aysan ahayn in wadan kale uu ku duulo waliba meelaha nuclearka ama waxyaabaha muhiimka ah yaalaan uu bartilmaameedsado sida muuqaalada qaar ay helnay ay sheegayaan meeshan aad ka fiiri karto sidoo kale Iran ayaa hadda qaadaysa mawjado hirar ah oo waliba aad u xoogan oo gantaala ah waa ujeedkooda in ay runtii meel iska saaraan waa wadan kaligiis taagan oo aan ilaa hadda haysanin cid u soo gurmatay haday noqon lahayd xagga hawada laga taageeri lahaa haday noqon lahayd xagga duqeynta hase yeeshee Israa'iil oo gardarada ku horeysay waxa ay taageero ka helaysaa wadamo uu kamid yahay Ingiriiska iyo Faransiiska oo qaarkood ay bareerahooda cadeysteen kuwaas oo horeyba uga gacan siinayay ilaa ay xilligan oo wajigii saddexaad la galayna ama habeenkii saddexaad la galayna ka gacan siinaya in ay hawada dhinaceeda ka difaacaan hubka ay Iran soo ganayso qaarkood saas oo ay tahay Iran ayaa xeeladaysanaysa waxaana ka soo gudbaya difaaci hawada Israa'iil ee waliba sidoo kale taageerada caalamka ay siinayeen gantaaladan aan wax xiliya la laayahay ilaa xilliga kuwaas oo ku hoobanaya meelo badan oo kamid ah dhulka ay runtii Israa'iil leedahay shacabka Israa'iil ayaa caqabad dareemay waxa xaaladda la yiraahdo martial law ama xaaladda aan socodka lahayn la geliyay guud ahaan dalka ilaa iyo 30 Juun wallahi xaalad adag ah haysata ayaga ayaa faraha la galay arin aysan sahal ku soo gabagabeyn karin muuqaal kasta telegramka ka arkaysa linkiga qaybta hoos u yaala assalaamu calaykum waa noo bilaabat shawsh